kusoo dhawaada barnaamijkan oo barnaamij gaara oo idinka imanaya magaalada Garowe ee magaalo madaxda gobolka Nugaal ee Puntland. barnaamijka waxaa noogu martiya madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiim Cabdilaahi Xaaji Cumar Camey. mudane madaxweyne aad iyo aad baad u mahadsantahay in waraysigan aad naga ogolaato. absalaan aad iyo aad baan ku salaamaya. waxa weeye 20ka bisha May sanadka 2017 su-aasha ugu horreysan ku weydiinaya waxa weeye abaarihii baahsanaaye guud ahaan ka dhacay geeska Afrika meelaha sida baan ay u taabteen Puntland baa ka mid ahayd roobabkii imika way da'een xaaladda dadku saytay absalaan marka ugu horreysa waxaan ku faraxsanahay maanta in badan ma radio iyo Universal TV iyo media ka maqli jiray inaan maanta si toos ah aynu isu ag fadhino is arkayno waan salaamayaa bahda Universal shaqaalaha iyo guud ahaan abaartan absalaan saad la socotaan waxay ahayd runtii abaartii ugu xumayd abid Soomaaliya soo marta markii aanu la sheekaysanay dadkii waaweynaa 85 jir 90 jir wuxuu noloshayda runtii abaar ka ba'an maan arag waxaana markii aanu sababta weydiinay waxay yiraahdeen abaarihii hore meel loo yar baxsado mar ma wada qaban jirin oo wax yaani guud baashu ma ahayne marba gobol iyo marba aag yunbay qaban jirtay laakiin tan waxay ahayd magac bay qaadatay leeyahay sima waxay noqotay meel kasta oo dalka kamida inay runtii saameysay dad iyo xoolaba si qalafsan oo baahsan oo adag runtii ay u saameysay alxamdulilaahi rabbil caalamiin roobkii waa daay in kasta oo uusan weli boqolkiiba boqol roobku ahayn oo dhul badan oo abaar ah ay weli jiraan haddana waxaan rajaynaynaa inay noqoto ilaahay de lagama qusto raxmadiisa in ilaahay siiyo arrimaha kale imika Puntland ka taagan waxa kamida dagaalka muddada ka socday galgala ee kula jirteen qoliyaha alqaacida sheegtay dhawaanna kooxo kale oo ay isku mabda iyo fikrada yihiin qoladaas ayaa iyaguna qandala qabsaday halkaba arintaasi maraysaa imika runtii absalaan hadda oo maanta oo bishu ay 20 tahay waxaa dhacday 20 alqaacida oo ka soo goostay qandala in ay markii la ogaaday inay goosanayaan oo soo carareen in ay ka daba yimaadeen halka waxaa lagu dilay 5 warkii ugu dambeeyay intii kalena waa ay soo gashay runtii ma aanan lahayn xiriir dheeraada oo communication nalama sameeyeen laakiin waxay noo soo mareen dhinac kale dad koonfur galbeed iyo xaggaas ay soo mareen ciidamada nabad sugidda ee PSF-ta iyo madaxtooyada yaa u tagay soo qabtay dagaalkaasi wali waa socdaa absalaan meeshu waa meel very strategic ah yaani waa bar qofka bini aadamka aadan arkayn kana saari karin xitaa hadii galgalaad ka hadlaysaa miya labada meelood waa isku land formation koodu waa isku dawiyeen galgala iyo qandala buurahaas ay galeen way adag tahay runtii lugna laguma helo oo dhirbay leedahay muxuu ahaa godna way galayaan xitaa hadii xagga sare laga duqeeyo lagama saari karo waa meel strategica waa meel la yaqaano waa meel yaani runtii ay adag tahay in lagu dhifid galaya hase ahaatee qoladan qaacida wararka kulli imika aanu helayno waxa weeyaan ama aanu ka helay source-ka sirdoonka ama aanu ka helay kuwan maanta oo bisha 20 tahay la qabtay yaani inaanay hayn dad haatan xoog iyo awood meesha ku jooga niman dhuumaaleysanayo tuuga inay yihiin oo dad tuugna waxay la tahay bas baad soo wada raacaysan jeebku ku siibaya marka inuu qof toogto iyo inuu meel wax dhiga mooyaane nin kafool dagaala ku soo aadi kara runtii maaha marka labada dhinacba haday tahay shabaabka iyo haday tahay
qoladan kale ee ka jabtay alqaacida waxa weeyaan noloshoodii waxaan u maleynayaa inay soo dhammaatay mudane madaxweyne haddii labada aynu kala qaadno oo aynu ku horeyno kuwan galgala ku jira muddo dhowr sannadood bay halkaa howlgallada ka wadeen dagaalku aa ku qaadaan mararka qaarkood buu dhacaa marna muddo wax waraa lagama maqlo tirahaan intee bay leegiin bay kula tahay sidee bay se ugu suurto gashay in muddada intaa leg ay halkaa ku jiraanoo sida muuqato sahayna ay ku helaan cabdisalaano waxay ugu suurto gashay runtii meeshan haddii aad tagto waa adun la yaabaysaa 3-4 hawo oo kala jaada markaad in yar dhaaftaba baad helaysaa dhulalka qaarkood waxaad moodaa inaad yurub joogto waxa weeyaan daruurtii agtaaday taagan tahay ceeryaantii baa taagan dhaxantii baa taagan dhulka kale waa kulayl dhulla waa qabowga caadiga laakiin aan ceeryaan iyo midna lahayn waa dhul aad u sarreeya waa dhul ilaahay ugu talagalay qofkii gala inaan la arkinba haddii uu helo raashin uu ku noolaado noloshiisa inta ka hadhay isagaan cid arkin yuu noolaan karaa ta kale waa dhul beeraleeya timirtii baa nooc kastaa waa ka baxaan marka waxaa looga saari kari la'yahay waa dhul dhufaysa waa dhul dadka deegaanku markii horena ay tuseen imikana ay la yaaban yihiin sida ay isaga saari lahaayeen runtii marka sababtu marka dagaalku joogsado habeenkii waa dad caadiya dee si loo kala saaro qofka Soomaaliga dad Soomaali weeyaan ma jirto uu soo lugeynaya raashin bay soo qaadanayaan dameero iyo awr bay inta badan isticmaalaan marka la qabtana waa la laayaa waana laga qabtaa laakiin inta badan godod bay geliyaan ay yaqaanaan iyagu garan karayaan habka ay ku nool yihiin ama laga saari karo waayo waa habka weeye dhufayska adag ee diyaarad nooc kasta haddii lagu duqeeyaan laga saari karin weeyaan laakiin dee in muddo abaysaan sheegay halkaa ku jireen mararka qaarkood qaar baa ka soo goosta mararka qaarkood maleeshiyaad baa ka qabataan tira ahaan intay leg baa laydinku sheegay cabdisalaan tiradii ugu dambeysay ee naloo sheegay 4 meelood oo min 3 ah say noqon kartaa 4 meelood oo min 3 iyo 60 يعني هداد كدرت صدح يا صدق كله ووح تريدوا دجود هم بقول وهذا يقول بطان هذا موست هذا يقول بطان لكن بقول يكون تندفايز هايسته كو أركية آذان أركين إذا ما ضلقتوا جوارد ماشي مقشوا تيب حام بقران ماشي تجان وحويان كل وولد توجنيان وميل very dangerous مركز سأن ويرينه يعني داوعة لمشهد عيدنك يعني مدة بقول كرتيت وكوعة كانسة لكن إن حريرها لقى مرة لقوا كونتينجرية إذا لفت هذه دول باحله يعني دولة أدوكت هاي دقالة هذه أنتوا اللي إجي هاي أنت اللي أكت هاي نرنتي مواد كرتو دقال أنت هالإج بقول واحد دقال كان كنترتي إلى 1993 ومركي أي بلابمين ورديميت ددو أي بلابمين إلى يومنا هذا دقال كان كنترتي يوم بكنترته وحويان دتك وادالي دقاله با كبر بري وحول با كبري لكن هدنا waxaan ku hanweynaa mar alla markaan isu nimaadnaba sida taariikhdaba ku hayso markii ay soo galeen suuj iyo garmaal iyo garacad de wixii lagu sameeyay waxa ku sameyn kar waayay 22,000 ee ciidanka ee ajnabiga ee Amazon ee jooga xamar baan ku sameynay wixii aan ku sameynay oo waliba muddo kooban Cabdisalaanow aan ku soo afjarnay arrinta imika ka taagan magaalada Qandala oo taa galgala lamida iyada wararkii ugu horeeyay soo baxay waxay sheegeen in ciidamo caalami ah oo la dagaalanka argagixisada oo reer galbeed loo badinayay ay dagaalka gacanidi ka siiyeen markii hore taasi ma jirto Cabdisalaam ma jirto haddii reer galbeed gacanna siinayaan waliba aan hoosta ka xariiqo haddii reer galbeed ay yani gacanna siinayaan oo nimankan naga caawinayaan la dagaalankooda bila kooban baan ku soo dhamayn lahayn laakiin waa nimanka ku oranaya la dagaalan wixii xabad ku dhacday dhinta waa meesheeda laakiin haddaad qabato ma dili kartid waa ninkii ka dilay 10 nin baa lagu oraya maxaad u dishay Amnesty International waatan human rights waa yani kun shay oo aadan midna shaqul ku lahayn waxaad moodaa human rights ki laftiisi baa wuxuu noqday double standard waa hab reer galbeedku ay isticmaalaan oo siday doonaanba markaan runta ku sheego ay u isticmaalaan buu noqday dad meel kasta gato human rights ka for example waxaad ka soo qaadaa juvenile systemka Mareykanka iyo Yurub waa kala duwan yihiin maalin dhaweyta waxay nagu haysteen human rights ku 7 wiilo saraakiil laayay ku laayay meesha leeyahay Boosaaso oo la qabtay oo qirtay
baa 17 iyo 18 bay laba noqotay shanina way ka weynaatay oo da'dii weyneed bay noqotay shantii waa la dilay labadii kale waa la hayaa intay warqad qoreen iyo madax xanuun iyo constitution ka la bedelo waad yaabaysaa markaad joogto for example EU-da iyo markaad joogto Mareykankana actually waa two different laws bay ku isticmaalaan laba kala duwan oo Mareykanka the juvenile court iyo juvenile system iyo juvenile hall iyo juvenile prison intiiba waa jiraa laakiin waxa laga yaabaa markaad Europe joogto in la yiraahdo wiilku aabihii hooyadii iyo cid damiinata iyo cid kale oo la noolaanaya laga kaxeeyo tiiba la doonayaa in lagu dhaqo which is adkaan doonta runtii habka ay yani iyagu wuxuu wadaan in dalkan lagu dhaqo mararka qaarkood waxa magaalooyinka ka dhacdo Garowe ay ka mid tahay weerar gagixisa iyo dad la khaarajiyo taas maxaa faahfaahinaya naga siin karaysaa Absalan waa mahadsantahay runtii horta Garowe waxba kama dhacaan hatta in kugu filan hadda Garowe waa joogtay markaynu soo wareysanay 1999 baa kugu dambeysay markaas soo noqoteen waxaan idhi yani magaaladu intee leegatay ma sha Allah Garowe waxba kama dhacaan dalka Puntland laba meelood baa wax ka dhacaan markaan runta ku sheego waa laba magaalo iyana aad u waaweyn waa Gaalkacyo iyo Boosaaso labadooda mid waliba waa meel ganacsi run ahaantii qof intuu soo siibtay dadkii soo dhaxgalay oo baastoolad soo qaatay aan qori kala sidan Cabdisalaam sidoo dooni ku dili karaa aadan garanayn ee isagu ku garanaya marka waxaan siyaabaha u dhacaysa waxaan lama Soomaalidiina lama kala xidhi karo waxaan ku sheegayaa bishii la oran jiray August 2016 qaraxii ugu dambeeyay 22 August baa Gaalkacyo qarax ka dhacay 25 waa naga dhimatay 9 waa ku dhaawacantay waa hal qarax you can imagine how huge it was waxaa dhacday waxaan xiray xadkii baan xiray muddo dhowr bilooda wax la dilayay iyo wax la qarxinayay iyo wax la waxaynaya ma arag marka waxa leedahay waa wax naga yimaada meelo naga yimaada south ka naga yimaada yes naga xagayaga ma doorashooyinkii Puntland waxa uu qorshaysan inay dhacaan 2019 ma dhacayaan Cabdisalaam waxay la tahay su'aashaas adigoo ku mahadsan yani qofka aad weydiisay ku xidhanta anigoo maanta madaxweyne ku xigeenkii Puntland waxaan qabaa inaanay dhici karin sababtuna waxa weeyaan sabab dhaqaale jirta dhaqaale haddaad haysto wax walba waad qorsheyn kartaa wax walbana waad suuro gelin kartaa laakiin dhaqaalena ma jiro international community waxyaabaha noocaas wax ku bixin jirayna albaabadooda xidhaan annana iskuma filin maadaama ay caynka tahay waxa loo baahan yahay dadka in la tiriyo waxa loo baahan yahay in xuduudihii la kala asteeyo waxa loo baahan yahay sanaadiiqdii meel walba in la geeyo waxa loo baahan yahay yani haddii 99 meelood uu ka dhaco hal meel uu ka dhici waayo dalka de maaha doorasho yani caama oo dadkoo dhan codeeyeen ma noqonayso waxay noqonaysaa doorasho in gaar ah codeysay marka amniga laftiisu galgalo oo kale aynu ka sheekeynayna hadeer suurtagal ma noqon doonto in galgalo oo kale uu ka dhaco marka asbaabo far badan oo isbiirsaday waxaan u arkaa inaanay suurtagal noqon doonin laakiin mudane madaxweyne maamulkiinoo kaliya maaha xitaa kuwii ka horeeyay markasta marka xukunka lala wareego waxa lagu ballan qaadaa in doorasho ay dadkoo dhan ka qayb galaan ay dhacayso marka dambena sanaad imika sheegayso ayuu baa u dhacdaa oo tii baarlamaanka lagu noqdaa maxaa ugu wacan runtii asbaabaha aan ku soo sheegay intii kolley ugu dambeysay aan garanayay intii hore iskuma aanay dayay laakiin intii dambe marka laga soo Cabdiraxmaan Faroole aad bay isugu dayay meel ba'anna runtii waxa waa gaarsiiyay waliba waan ugu hambalyeynaya runtii meesha uu gaarsiiyay laakiin inta maanta na haysata inteeda baa runtii isagana haysatay marka maadaama dulkii uusan nabadgelyadiisii wada haboonayn oo aan ku leeyahay dee galgalo oo kale imika way adkaan doontaa in la geeyo laakiin dalka intiisa kale la geyn karo dhaqaalihiina uu iska xun yahay waxaa fiican inaad always xusuusnaato in loo baahan yahay in la gaadho processkan one man one vote way fiican tahay runtii ammaan baanu ku mudanahay mar haddaanaan ilowsanaynba oo aanu isleenahay mar unba iman doontaa dadkiina ha xusuusnaadeen muxuu ahaa siyaasiyiintuna had iyo jeer yani afka yaana ka qaadina cararka yaana ka qaadina la soo celceliyo waxaan hubaa inay dhici doonto dhaqso marka aynu madaxweyne ka tagno sababaha kale ta dhaqaalaha aad afka ku dhufatay dad fara badan waxay qabaan xogogaali in Puntland dhaqaale xumo aanay haynin ee maamul xumo xagga dhaqaalaha ay hayso dooda sidaas maxaad ka qabtaa waxaan ka qabaa waa labadiiba runtii waa jirtaa waa qiranaya
يعني ويجرتاado cabdisalaan lafdhabarka dhaqaalaha ummadda Soomaaliyeed waa xoolo يعني sida proofka aan kugu proof karinay dhinaca xoolihiina waa dhamaadeen dekada hadaan maalinta tagto waxa laga yaabaa 1,000 ama 2,000 oo xitaa kama baxaan ma dhoofaan xagee u dhoofaan marka inta aad sheegaysaa maadaama seen ka war hayno suuqii ugu weynaa ee xoolaha Soomaalidu u xiran yihiin Yemen iyo waxay u dhoofaan Cumaan hadda laakiin de wax ka fayn karaya wixii la dhoofin jiray maaha suuqu total wuu xiran yahay marka maadaama xooluhu ay haayeen lafdhabarka dhaqaalaha iyo nolosha ummadda Soomaaliyeed oo waliba khaasatan ariga riyaha iyo iduhu ay haayeen wixiina baxeen oo laga yaabo hadda 20% baan nool 80% way dhimatay runtii dhulka badidiisa ma noqon doonto yani arrin sahlan in dhaqaalo runtii la helo marka taasaa keenaysa in hawluhu socon waayaan tan kale ee dadka qaarkood ay sheegayaan in maamul xumo xaqii dhaqaaliga ay jirto haddaan mar kale kuugu celiyo laakiin dhaqaale xumo aanay jirin taa maxaad ka leedahay runtii labaduba waa jirtaa sidaan kuu sheegay taa waxaan ka leeyahay yes waan qaranaynaa waxa weeyaan dadku wax badan baa la luus gareeyaa annagu manhin database iyo systemkan modern systemka ee wax lagu sheegareeyo malihin meel kastaba askari ma taagi karno way jirtaa maamul xumo runtii jirtaa markaan runtii kuu sheego dhaliilaha kale dhinaca maamulka ee la idin soo jeedinayo waxa kamida in ay idin suurtagal weyday ilaa imika oo Puntland 20 jir ay ku dhowdahay in hay'adihii dawliga ah la xoojiyo la tayeeyo oo si habboon ay u shaqeeyaan cabsalaana waxa weeyaan runtii de waa un war baan u maleynayaa 2-3 cishaad la joogtay badibana waxaan u maleynayaa jimcana uu ku jiray waliba aan dawladdu shaqeynayn waan ku ogahay waqtina ma haysid haddaad rabto waan ku geyn lahayn hay'adaha dawladda waxa weeyaan hay'adaha dawladdu exactly sidii dawladnimadiiba u shaqeeyaan waxaanu tababaraa South West administration waxaanu tababaraa oo nooga yimaada muxuu ahaa Jubbaland baa nooga yimaada waxaan rajaynaynaa in Hirshabeelle iyo Galmudugna ay noo yimaadaan haddii aanay tababar wanaagsan iyo capacity building aanay haynin suurtagal may noqoteen runtii wax naga dhimana waa jiraan laakiin waxaan ku hubaa qaabkii dawladnimo oo waliba very strong adag inaanu meesha ku hayno mudane madaxweyne waxaad sheegtay in aad tababartaan maamul goboleedyada kale ee Soomaaliya laakiin kuwa idinku xigo Galmuduga muddo imika dhowr bilood laga joogo dagaal idin dhex marayay murankiinu ma dhamaado imika xiriirkiinu sidii runtii wacan yahay waxa weeyaan 2 usbuuc ka hor wasiirka qorsheynta miyaha wasiirro ay leeyihiin baa joogay meesha waxa weeyaan waana dhacdaa marmarna waa la isqabtaa ummadda Soomaaliyeed dhaqankeedana waa taqaanaa iyadoo dhuunta la isku dhufanayo maanta yaa bari gacmaha la is haystaa yani waa ummad yani wax saamixi karta waxaanan qabaa hadda maamulkan cusub ee Axmed Diiriye muxuu ahaa geelle inuu wax badan ka bedeli doono xaaf inuu wax badan ka bedeli doono anigoo runtii ugu hambaliyay qudbadiisii markii ugu horeysay uu jeediyay oo uu ku baaqay nabadgelyo una arka in wax weyn oo la isku hayaaba runtii aanay jirin wada hadalkii iyo mis wada fariisigii inuu meeshii ka maqan yahay taana aad moodo inay keeni karto marmarka qaarkood yani qofka partnerkaaga ama madaxweynaha dhinaca kale inuu kula aragti noqdo in malaatiile la yahay laakiin hadda la helay baad moodaa dhinaca Somaliland inkastoo aanu jirin muran xoog leh ama dagaal imika taagani haddana khilaafkii arrimihii uu ka bilaabmi jiray oo dhambe sidoodii bay u jiraan see isku tiini imika cabdisalaan Somaliland waa Somaliland Puntlandna waa Puntland waxaa laga yaabaa taariikhdana dee nin looga sheekeynaya inaadan hayn Somaliland dhul bay xoog ku haysataa runtii Puntland ay tirsanayso dhul ahaanna u tirsanayso markaan runta ku sheego haddaad dhinaca Soomaaliyeed Soomaalinimada iyo qabyaaladda u tirahdana qabiil ahaan ku tirsanayso maadaama ay taasi jirto yani Puntland waxay qabtaa 2 shay 3 shay baa mid uun iman kartaa in dadka afti laga qaado inay ka baxdo iyadana aftiba laga qaadin iyo lagu dagaalamo Puntland iyadu mar walba dagaalku wuxuu noqonayaa last option marka xal kale la waayo yuu noqonayaa laakiin waxaan jecelahay international community-ga
iyo muxuu ahaa Somaliland iyo Puntland isku aragtay inay ka noqdaan hawshan si ummad bad qabta iyana ay uga tagaan annana ugu tagno marka hawayaan hawsha kaliya haysataa waa taas wax kale oo dhibi oo taagan ma jiro haba yaraatee laakiin mudana madaxweyne kaaga warrami maayo iyaguna si kale ugu qiil sameeyaan oo tii xagga taariikhda iyo maamulkii gumaysiga shirarkii kala dambeeyay nabadeynta iyo heshiisyadii la saxeexday laakiin dadka ka faallooda arrimahani muddo fara badan waxay farta ku taagayeen siyaasiyiinta beeshaada adiga qudhaadu ka soo jeedo oo xaggan Puntlandna ku jira Somalilandna ku jira federaalkiina ku jira khaatumana iyagu samaystay ma la odhan karayaa dhibaato xaggaas ka socotaa runtii horta marka ugu horeysa tii ingiriiska cabdisalaam reero ingiriis ina qabsay tegna waxaweyaan wax ingiriis oo meesha jooga ma jiro mar hadduu tegey inay noqoto ma doonayna yaxtag ee la reeb waxayaan qofku inuu fahmo haddaad ku doodayso for instance qabiil ku doonaysana waxba ku helmaysid haddaad juqraafi ku doodaysana waxba ku helmaysid oo dhulka ay hadda joogaan haddaad Oxford aad library haddaad tagto oo ingiriiska haddaad tagto waxaad arkaysaa taariikhdii oo dhan baa taalla barta xadka burco iyo u ah for instance buuhoodle waxa weeyaan baasha la yidhaahdo beer agteeda weeye taasi waa juqraafiga ta qabiilkana waan ku yidhi laakiin waxaa hubaal ah oo meesha ku jirtaa waxay tahay siyaasiyiinta la sheegayaa waa un af maalin dhoweyd baa su-aasha lay weydiiyey gabadh la yidhaahdo khadra baaruud oo hargeysa ka timi oo riyale aan aad ugu hambalyeynayo oo u timid dadkii uu ku dhacay shubanku inay wax ka soo daweyso baa anigoo buuhoodle joogay i weydiisay su-aashaasoo tiri buuhoodle waa meesha ugu dimuqraadiyadda badan waayo waxaan arkay 5 maamul waxaan ku yidhi maxamed xaaji ibraahim cigaal ilaahay u naxariiste iyo group dhulbahanta abuu la sheekaystay markaasuu warheedha markaan anigu dalka joogay 2 isin baad lahaydeene waxan oo isina iyo hebeliyo fuaadan cadde isaga isna ilaahay u naxariiste baa yidhi madaxweyne waxaas waa iska naanayso waxa xaqiiqa ah waxa dawladda lagu sheegaya waa wada naanays wixii aan Puntland ahayn mudana madaxweyne haddaan wax kaa weydiiyo xidhiidhka la leediin dowladda federaalka wada shaqayntiinu siday tahay imika waxa weeyaan xilli hore iyo hadda iyay kala yihiin hadda waa dawlad cusub waxaan u rajaynaynaa guul waxaan u rajaynaynaa horumar waxaan u rajaynaynaa wanaag weli xilli wax laga sheego iyo xilli leeriyad hadda waxaan maqlayay group la yidhaahdo orsocdo ku shirshiraya for example Nairobi ku shiraya waxaan u arkaa inay tahay xilli hore it's too early in ama wax laga sheego ama la caarida laakiin markaynu eegno sida arrimuhu u socdaan guud ahaanba Soomaaliya gaar ahaanna xidhiidhka Puntland iyo dawladda federaalka hadday noqoto tan imika iyo hadday noqoto kuwii ka horreeyayba miyay jiraan wax macno leh oo la sheego idinka dhaxeeyo wada shaqayn runtii waa jiraan waxaa ka mida wax allaale iyo shirarka for example internationalka ama shirarka inter ministerialka ama wax kasta oo laga wada hadlayo wax ka qayb galaa waa tagnaa tashirarku way jirtaa maamulada kaleba sida Puntland u tagto ayay u tagaan laakiin markay wada shaqayn timaado dastuurka federaalku maamul goboleedyada waajibaad buu saarayaa iyo waxyaabo laga doonayo sidoo kale dawladda federaalkaana waxyaabo waxa jira uu farayo wax wada shaqayn oo sidaas oo nolol maalmeedkii haba yaraatay ma jirto Soomaaliya runtii waxaan qirayaa wali inay adagtahay waxyaabaha yaryar ee keena marmarka qaarkood in la isku dhacana kelmadda hadda cabdisalaam oo aad sheegtayba ka mid ah wax badan oo aan dhammaystirayn baa jira constitutionka laftiisii baad moodaa wali inuu qabi qoraal yahay waa la meel mariyay Soomaha waa la ansixiyay la ansixiyay laakiin wali ma dhamaystir hadda dawladdan u balansan tahay inay dhamaystirto ma dhama aragtidaada marka la ansixiyo waxaan dhamaystirnay marka hore waxba qaldanaa Soomaa absolutely waxba qaldanaa mar walba waxaad moodaysay in la doonayay xilliga ay western countries ku dhigteen dawladaha reer galbeed ku dhigteen iyo baahida Soomaaliya ka jirta marnaba isma iman mar walba waa kala taganaayeen waa la briskraynayay waa la bishkraynay inay waxaan oo dhani ay mar wada dhamaadaan tii ingiriisku oran jiray more haste
less speed haddaad degdegto qalad baad samaynaysaa qaladkiin baa la sameeyey laakiin wax la adiga aragtidaada haddaan ku weydiiyo soomaaliya inteeda kale waxay qabtaa in somalilan goosatay laakiin dadka arrimaha soomaalida u kuurgalaa waxay tilmaamaan in puntland ay goosatay oo jubbaland ay goosatay oo koonfur galbeed ay goosatay oo sidaa lagu kala dhaqaaqay markaad xaqiiqada eegto adiga taasi see kugu muuqataa wax ka jiraa ma jiraan cid goosatay ma jirto anaa kule madaxweyne ku-xigeenkii puntland baana waxaanu nahay state ka mida dowladda federaalka waan garanayna laakiin magac ahaan baad uga mid tihiin Soomaaliya sida markaynu magac ahaan iyo dawlad ahaan iyo ficil ahaan intaba waan uga nahay ma noqon doono sida Somaliland waxa la yiraahdaa baasha sakaarada la yiraahdo baasaala la arki doono aasta yani waxaad ka waraysaa hadda hal example man ku siinaya dekada Berbera iyo payska leelaha waxa la siiyay United Arab Emirates ka labadaba dawladda federaalka saxeexday laakiin يعني جيس النمدي لوجو شيء لها شعب كرير سوماليلاند بعد دولة لعضة يعني يجران لعضة يهبك يوجو شيء لهيد مركا وحي كبقيان برتا تاجين بركا سيحون إن يسي تاجين لكن وحاه بالا إن يهين قيب كميدا دولة فدرالك. إن إذن كهشيس كسلاس دي بي ويل على جشان إذن كلام واحد ينسح هذه دولة فدرالك. دولة فدرالك هو قصة وحكستو أو ديفلوبمنت كسابسن أو معمول قبل دادو أي قبنيان ومدة الصومالية كوذا فائدة السنسو وحا أثورايس له دولة فدرال ككلجيت عيد كلام والله بقى يبوط وحي الدولة دي أيكو سماينسو وحي الدولة أيكو سماينسو وين الدولة فدرال ككاشا وحي برايفت انفسترسا انفستمنت دولة قام بهن صحيح مركات سبب الديفرنس كو عينكا everything وحي صحيح دولة فدرال وكو سابسن دولة إلى دولة مستقبل كجودها صوماليا سيدو أركتها marka aad ka qiyaas qaadato waxyaabaha gobolka ka dhacaya waxaan u arkaa runtii mustaqbal wanaagsan waxaan ku saleynayaa maalintii dhaweyd xildhibaanadii sameeyay uprising-ka ama kacdoonka yar sameeyay la sheegayo marna la leeyahay waa 100 marna la leeyahay waa 20 inta u dhaxaysaba ka soo qaad inuu noqdo 20 ilaa 100 inta u dhaxaysa inay noqoto ummadda Soomaaliya siday uga qaylisay haddaad gasho social media iyo haddaad xamar arkaysayba yani siday dadku u diidanaayeen maalintii la doortay farmaajo hargeysa rasaas laga riday burca rasaas baa laga riday muxuu ahaa Berbera waa laga riday anagu maanu maqal ana bad ku sheegay absalaan it was a fact boosaas laga riday meel aan dalka Soomaaliyeed laga ridin ma jirto rash iyo rasaas waxa weeyaan marka waxaad arkaysaa ummadii Soomaaliyeed inay isu soo hiloobayso oo aragtay yani baahida taana waxaan ku sheegay absalaan sooraan haddii aad daawatay majaajila yar oo dhigay mid baa gaari weyn kaxeeyadoo gaarigan la yiraahdo caga badana ama candamaydlah markuu dhaqaaqay buu arka joog wuri waxaad gashay kilalka Soomaalida dib uu kaxeey arka joog buu Djibouti baad gashay markaas uu soo kaxeeyay soo arka joog Soomaaliyaad gashay hadaba inaga dajibay meel aynu kaxayna bahalka mayna waxaynu ka xaysanaa tiiba taagan nin walba taas haysata Cabdisalaano waa ku qasbanahay inaynu Soomaalinimadii iyo midnimadii iyo magacii iyo karaamadii iyo sharaftii Soomaaliyeed in la soo celiyo nin walba ku qasban yahay wadana madaxweyne aad iyo aad baad mahadsantahay mahadsantahay Cabdisalaam thank you very much kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdilaahi Xaaji Cumar oo igu waramayay magaalada Garowe ee magaalada madaxda Puntland barnaamijkan waa kala socoteen telefishinka Universal la intaasi ayuu ku dhan yahay intaynu dib u kulmayno nabadgelyo